hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa ka soo horjeesatay sharci ay wasaaradda haweenka u gudbisay golaha wasiirada. Kiin Cumar Makraan ayaa warkan magaalada Muqdisho ka soo dirtay. kulan ay iskugu yimaadeen hay-adda culimada iyo odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale culimo u diinka Soomaaliyeed ayaa waxay uga hadleen kulankooda wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska xukuumadda Soomaaliya oo sheegeen inay soo saartay siyaasadda qaranka ee jinsiga kuwaas oo qodobada ku jira sharciyadaasi inay ka hor imaanayaan sida ay sheegeen shareecada Islaamka. qodobada lagu gudbiyay golaha wasiirada ee sharcigan ee wasaaradda ay gudbisay ayaa waxaa ka mid ah heshiisyo caalami ah sida ay sheegeen culimada Soomaaliyeed. ugu horeyn kulankooda ayaa waxay ka soo saareen bayaan iyo waxyaabaha ay dhaliilsan yihiin. waxaana ka mid ah waxyaabaha heshiisyadaas ay ku khilaafsan yihiin shareecada Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida. qodobadan soo socda in la sahlo wax kasta oo fududeynaya sinada laguna dhiirigeliyo dhalinyarada isticmaalka waxyaabaha uurka joojiya sida cinjirka galmada iyo kiniiniyada iyo wixii la mid ah. in la baneeyo sinada loona arko xaq bini'aadamku leeyahay. in la baneeyo laba qof oo isku jinsi ah, laba rag ah iyo laba dumar ah in ay isguursadaan. waxay amrayaan in la daahiyo guurka sharciga albaabadana loo furo sinada iyo galmada xaaraanta ah. in la baabi'iyo mas-uuliyadda uu ninku ku leeyahay qoyska wilaayadii macnaha laga qaadaya iyo qawaamadii. in laga qaado mas-uuliyadda ay aabbayaashu ku leeyihiin carruurtooda gaar ahaan gabdhaha. in dumarku ay xor yihiin marka laga dhinto ama la furo taasoo macnaheedu tahay inaanay ciddo lahayn. qaar ka mid ah culimadii iyo waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa waxay sheegeen in waqtigan loo baahan yahay in wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka in ay ka laabato sharciga ay golaha wasiirada ay ku gudbisay ayna ansixiyeen loona baahan yahay in raaligelin ay ka bixiso. ila arrujuuc ila alxaq inay xaqa u noqdaan faraynaa oo ilaahay u galiimaan oo buuggaas madow aysan ummadana ku mathalin naftoorana ay cadaabka ilaahay uma qaadi karaan ugu horseedin. waa ujeedina koow cid aan la hadlayno meelo kale intaanan teginba madaxdayna la hadla golahayna wasiirada la hadla arrintaasa ka noqdeen. muwatalka dowladnimadana waa midkaad arkaysana waa nimanka ansixiyey warqadaas waxa ku yahay shacabku may gartaan ayagu inay isu dowlad yihiin ما لا حكومه دتك أرنتاس كان ما الحكم كردنا واحد واللي هلا واحد قاب واللي حتى قرصور واحد قاب واي شعب كادلة وحي أمال المريض وحقون غضون تيني عراني ودك يكون ولا ويان شيشايا الدياري أيكما متى كلاتو دمر كالصومالية الإسلام كوحا كفرا دينت إسلام كحقوق أنت كسيسا كفرا. gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaada ayaa waxa uu sheegay in sharcigani uu yahay mid gaf ku ah shareecada Islaamka ayna ka digayaan culimada Soomaaliyeed. walaalayaal dumarku ordahaya siyaasadow waxa shaqada idin haya waa waalidkiin waa walaalkiin waa wiilkiin inta iimaansada haddii kale doorasho soo gala wixii mid idin siisan arka maxaa yeelay kootada waxa la yiraahdaa diinna maaha dimuqraadiyadna maaha. waxaan ku soo gabagabaynayaa waan ogahay marxalad adag baa la marayaa dhammaanteen dalka iyo siyaasadiisa waan saluugsannahay rag dumarba waan saluugsannahay. marka saluugka waxa looga bixi karaa dumarka maaragtay orda ama ragga oo yaaca maahane waa in dalka loo raadiyaa alqawiyul amiin oo ka saara marxaladan. Kiin Cumar Makraan Somali Cable Muqdisho.